Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan waxaan kuu rajeynayaa inay maalin qurux badan kuu tahay waxaad ku soo dhowaataa mar kale barteeda youtube-ka wayna kaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad muuqaalada u daawanaysaan subscribe u saaraysaan weliba qaybta faalladana aad aragtidiina kaga soo dhiibanaysaan maanta muuqaalka waxaan rabaa in aan idinkaga mahad celiyo halka aadna soo gaarsiiseen ee aan mar labaad iyo mar saddexaad aan idhaho aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin barteeda youtube-ka waxaa ku soo xirmatay toddobaadkan 38 qofood dabcan 38 qofood ma ahan dad yar hal qof ayay ka bilaabatay inuu barteeda youtube-ka soo subscribe gareeyo maantana waxaan maraynaa 48 qofood dabcan 48 qofood ma ahan dad yar marka loo barbardhigo kanaalada haysta in ka yar kanaalkayga inta qofood ee ku xiran ama janaalkayga inta qofood ee ku xiran waa ii farxad run ahaantii in aan soo gaaro ku dhowaad 50 qofood inay ku soo xirmaan barteeda youtube-ka waana idinkaga mahad celinayaa inaad halkan isoo gaarsiisaan welibana waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa dhallinyarada qaybta faallada igula wadaaga aragtiyadooda iyo muuqaalkii ugu dambeeyey ee aan baahiyey 500 ee qof ee daawatay mar labaad iyo mar saddexaad ma soo koobi kara mahadinta haddii wax yar qof uu kuu qabto waa inaad u mahad celisaa marka aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa inaad garab istaagtaan ee aad youtube-kayga orodka ah aad halkan soo gaarsiisaan muuqaaladana ay noqdaan muuqaallo ay dad aad u fara badan daawadaan marka kanalkan sababahan u aasaasay run ahaantii waa in aan dhallinyarada ku dhiirageliyo ku guubaabiyo maaragtay aan ugu soo bandhigo fursadaha ay kaga faa'iidaysan karaan hadday noqoto shaqada hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto in ay naftooda iyo shakhsiyaddooda horumariyaan waa hadafkayga ugu horreeyey ee markan kanalkan ku soo biirayay aan maaragtay ugu soo biiray waxaana rajaynayaa in waajibaadka shakhsi ahaan i saaran ee ah inaan dhallinyarada u soo gudbiyo wax horumarinaya shakhsiyaddooda iyo qofnimadooda wax ku soo kordhinaya inaan maaragtay waajibaadkaasi ka soo baxo hadduu ilaahay ka raali noqdo wax walba markay bilow yihiin caqabado fara badan ayaa jira mararka qaar waxaa laga yaabaa in aad fursad u weysid inaad muuqaal soo baaxisid dabcan kalama jeedo anigoo hadaf leh yoolka leh inaan horumarka gaaro barta youtube-ka inaan muuqaal soo gudbi waayo laakiin waxaan kala jeedaa mararka qaar waxaad la wadaagaysid dhallinyarada waxay kaaga baahan yihiin research inaad ku samaysid baaritaan inaad ku samaysid ama baxthi aad ku samaysid se maaragta waxaas aad ula wadaagtid dhallinyarada ay waxaas aad la wadaagaysid u yihiin wax waxtar u leh marka waqtiyada qaar researchiga aan samaynayo ama baaritaanada aan samaynayo ayaa waxay iga qaadataa waqtigaas marka laga soo tago waxaa jira in aanan weli la qabsanin inaan qalabkii aan hagaajiyo ee aan laydadkii shido ee aan codkii saxo ee aan kaamiraddii inta soo hor fadhiisto aan maaragtay isku soo diyaariyo inaan muuqaalkii aan sameeyo taa laftigeeda waxay u baahan tahay la qabsi iyo joogteyn iyo dabagelidii u baahan tahay markaad waqtina wax baranaysid waqtina shaqaynaysid aad
naftaadii ku mashquulsan tahay shakhsiyaddaadii aad dhisaysid aad kobcinaysid intaasna aad rabtid inaad hantana sii samaysid dabcan waqti bay qaadanaysaa marka waxay ka mid tahay caqabadaha mararka qaar adoo daalan ayaad xaafadda imaanaysaa mararka qaar waxaa laga yaabaa in aysan kaa qabanin inaad muuqaal soo samaysid ama aad kaamirad shidid nalalkii shidatid mikrofoonkii wixii dhamma aad isku dabaritid oo aad libis inta soo xirata aad soo fadhiisid balse ma jooji doono wax walba bilowga ayaa ugu adag haddii mar walba bilowga aad la qabsatid ee aad joogtaysid maalin walbana aad ka degatid caadooyinkaaga joogtada ah waad ka guulgaaraysaa waxaana rajaynayaa in aan ka guulgaaro ee aan heerkan maanta taagana heer ka sarreeya aan halkan ka gaari doono insha allah kontonka kun ee qof ee halkan ku xiran kontonka qof ee halkan ku xiran afwan kontonka qof ee halkan ku xiran waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan uga mahad celinayaa inay muuqaaladeeda daawadeen ay barteeda youtube-ka subscribe saareen mar labaad waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan kaa codsanayaa inaad dhallinyarada saaxiibadaada la wadaagtid ee aad ii noqotid dhiirageliye waxaa jirta oraha aan hadduu isticmaalo oo iigu qoran social mediahayga qaar aan ku dhiirageliye dhaqaaqa halkan waan kugu dhiiragelinayaa laakiin qofka dhaqaaqo waa adiga hadduu ilaah ka raali noqdo waa muuqaalka inoo xiga iyo mawduuc qurux badan haddaa halkan soo gaarto waxaan kaaga tegayaa inaad muuqaalkayga sii sheer garaysid ee aad barteeda youtube-kana subscribe saartid saaxiibadaadana aad halkan ku xasuuntid si ay qayb kaga noqdaan safarkeenna wax dhiska iyo wax qabsiga aad iyo aad u mahadsantihiin sidaa iyo nabadgelyo